Maamadan waa maamadii ku xanuunsanaysay magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaago oo aan shalay galab u soo bandhigay dadka muxsiniinta ee wax la baxa. Haddaba saaka subaxnimadii hore ayaa dad muxsiniina oo ku kala sugan qurbaha kala duwan ayaa ila soo xiriiray waxayna iga soo codsadeen in aan islaanta lambarkeeda u soo saxo afkeedana ay ka maqlaan. Haddaba waatan iyadoo Xaawo Rooble ay afkeeda ka sheegayso lambarkeedii oo ah marka Soomaaliya gudaheeda la joogo 47 58 64 94. Furu waa toddoba aye 58 haye 64 haye 94. okay hooyo lambarkaaga waa ka dad muxsiniin ah ku soo codsaday inaan lambarkaaga iyo magacaaga saddexan ugu celi magacaaga saddexan. Xaawo Rooble Shire. marka dadka muxsiniinta na soo codsaday waxay rabaan lambarkaaga oo saxan iyo magacaaga inay soo lahaadaan. waa dad qurbo jooga Mareykan iyo Kanada kala joogaan. xilligaas waxay ku soo amreen inaan lambarkaaga dadka u saxo muxsiniinta ah oo ku maqan oo daafaca caalamka ku kala jira gaar ahaan Mareykan iyo Kanada laga soo codsaday inaan lambarkaaga soo saxo afkaaga laga maqlo. marka aniguna insha Allah saasaan u gudbinayaa dadkaan u ducay muxsiniinta. waxa weeyaan islaantu hooyaday lambarkeeduna waa lambarkaas ay idin sheegtay oo ay idin yeelinaysay waa 47 58 64 94. marka sidii shalay aanu macnihii hawshan u soo bandhignay bay noo tahay.